وصحبه وسلم أجمعين مدحوينها الجمهورية قولها وسيرها أقاسمياش جود هيئتها قرنكا تلسيادة عيدنكا سفارتها مدحضة وكالتها إذا قلت شوقا يدمان كسوق قلياشة شرفت له مركو ريو قدوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحين أغنهي إن كستو دايرنمو iyo faqri aynu muddo ku soo jirnay kasto oo mar maqalnay in hantideena iyo sakadeena la bixiyo la siin jiray dawladda khaliijka haddana waqtiga hadda aynu kicinay gumaysigii cadaayaynu gumaysanayay muddo ka badan 62 sano ka hor ilaa maanta waxaynu ka bixilaanay danyarnimo faqri abaar isdaba jooga taasoo inagaysiisay in aynu noqono saddexda dal ee ugu dhaqaale yar adduunyada inaan ka mid noqono haddaba dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo arinta ka duulaysa culayska ay leedahay waxaanu qabanqaabinay shirweynahan economic forum-ka ama madasha dhaqaalaha oo aanu ka doonaynay inaan xuluul ku helno dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka ka jira ujeedkeenu wuxuu ahaa bal in la isku keeno khuburo waxgarad aqoon-yahan ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha oo ay nala gorfeeyaan caqabadahayna haysta si aynu u raadino xuluushii iyo waxaynu kaga bixi lahayn falanqeyr dheer oo muddo dheer socotay waxaynu u gudagali doonaa in aynu gorfayno bal xaqaa'iqa ay ku sugan yihiin nidaamkeena beeraha kalluumaysiga xoolaha ganacsiga maaliyadda tamarta maalgelinta iyo deeqaha aynu ka helno bulshooyinka caalamka sidaan u maarayno arrimahaas aad baa loo falanqeyn doonaa sida oo kale waxaanu qabanay shirar aanu qabanay daneeyaasha dhaqaalaha ee dalkeena ay ka mid yihiin beesha caalamka jaamicadaheena ganacsatada warshadleyda beeralayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaantoodna waxay arrinkan aan maanta qabanayno shirkan ku darsadeen talooyinkoodii shirweynahan bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa maalgelintiisa taladiisa qorsheyntiisu dhammaan waa qaranka Soomaaliland ayaa qorsheeyay shirkan waxaanu diyaarinaynay oo ay dawladdu waday 3 bilood ee ugu dambeysay ayaanu wadnay shirkan waa sharaxi doonaaye waxaa soo qabanqaabiyay 9 wasaaradood ee ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha iyo 3 hay'adood aan sheegi doono maaliyadda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ganacsiga dalxiiska xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka maalgashiga beeraha isgaarsiinta iyo horumarinta teknolojiyada macdanta iyo tabarta iyo hay'adaha kala ah bangiga dhexe Soomaaliland hay'adda caymiska qaranka iyo rugta ganacsiga waxaan la hilmaami karin xog haynta golaha wasiiradu inay ahayd hay'adda ugu firfircoon ee gacan qabatay waxba la qabanaysay dhamaantay markaan hawsha qabanqaabinay haddaanu hel lahayn toosinta iyo talooyinka madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi way nagu adkaan lahayd inaanu ka gudubno caqabadihiina hor joogay haddaba waxaan ka rajaynaynaa shirkan in la isla garto xaqiiqda caqabadaha dhaqaale ee dalkeena ka jira iyo inaanu u helno xal waara aynu kaga baxno ugu dambeyn qodobada shirka ka soo baxa waxay noqon doonaan go'aamo ay ku shaqeeyaan hay'adaha kala duwan ee dawladdu shirkanna waxaan ugu talagalnay inuu noqdo mid sanadla ah oo aynu hadda ka bacdi sanad kasta qaban doono waxaan doonayaa shirkan quruxda iyo qaayaha leh inaan ugu mahadnaqo aqoon-yahankii waxgaradkii dhalinyaradii ka tirsanaa
sagaalka wasaarood iyo saddexda hay-adood sida karaamada leh ee ay shaqada u wadeen ee joogtada ah habeen iyo maalinba 16 Juulaay baan magacawnay ilaa iyo maanta 12 bisha September ah saas u shaqeynayeen habeenada qaarkood may seexan qoraal iyo habeen bay ku jireen runtii waxaan jecelahay intaan shirku bilaaban inaan u yeero ragga miisaanka leh ee nala shaqeeyay oo u mahadnaqo kunaada waad mahadsantihiin waxaan codsanayaa inay garabkayga soo joogsadaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi soo dhaxay ما هي ما ديك وصل صعيد صوت الله بقى عبد الرحمن برخض أبيب حسن يسونه خضر أحمد عبدي فؤاد رشيد بلو عبد الرزاق علي محمد عبد الله سمدون عمر جوهر عبد الرحمن عبد السلام حمزة سليمان نور عبد الفتاح عمر عبد الله محمد عبد الله علي خضر نوح يونس محمد إبراهيم حسين عبد الرزاق عبد الله إبراهيم يوسف حرديد أحمد علي مدحوينه ogolow inaan hortaada ugu mahadnaqo dhalinyaradaas aqoon-yahanka iyo waxgaradka runtii si xirfad ay ku dheehan tahay iyo aqoon iyo wadan jacayl noogu soo qabanqaabiye shirka waxay la kulmeen dhammaan hay-adaha khusayso waxay la kulmeen dhammaan banaliiska ama dadka doodaha cilmiga qaban doona qof iyo iyagoo jamac ay la kulmeen jadwalka nidaamkeena iyo qoraalka iyaga noo sameeyay waxaan leeyahay walaalayaal waad mahadsantihiin